kulankan su'aalaha lagu weydiinayay wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaamacadda SIU qaybteeda kilomitir 4 waxaana ka qayb galay ardada jaamacadda iyo macallimiinta. kulanka ayaa waxaa wasiirka looga dhageystay warbixin dheer oo uu uga hadlayo kheyraadka dalka iyo qaabka wasaaraddiisu ay wajahayso in bulshada Soomaalida ay ka wada faa'iideystaan kheyraadka dalka. ardada ayaa su'aalaha ka weydiinayay wasiirka arrimaha shidaalka dalka iyo shirkadaha shisheeyaha ee maamul goboleedyada heshiisyada kala galaya arrimaha shidaal qodista, sidoo kale doorka wasaaraddiisa ee arrimaha shidaalka iyo macdanta dalka iyo muranka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya ee dhulka Soomaaliya iyo arrimo kale. wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar ayaa waxa uu ka jawaabay su'aalihii laga weydiiyay howlaha shaqo ee ay wasaaraddiisu qaranka ugu xil saaran tahay, waxaana uu sheegay in hadda wasaaraddu wado dadaallo ay ku ogaanayso macaadinta ku jirta dalka Soomaaliya iyo sida bulshadu ay tahay inay uga wada faa'iideystaan. Soomaaliya macdan macna waxaan loo yaqaano geological survey ugu roona ama ugu fiicnaa waxaa la sameeyay 1965 ilaa 25 UNDP da sameysay marka ayaan dhaxas waan aragnay wada hadallo weyn oo socdaan hay'ado kala duwan oo aan rabno inaan mapping ku sameeyno exactly xagga macdanta Soomaaliya maxaa ku jiro mana gees to gees inaan ogaano hadaaytu waa waxyaabaan ka hadlayno kala daytada waa wax aad muhiim ah inaad ogtahay waxa aad haysato nooca ay yihiin inta ay ganacsi galaan soo marka macluumaadka kuma saabsan oo kaliya petroleum daytada macnaha way ku saabsan yihiin macnaha miningka ama macdanaysiga waxa laaliyo waxa aan leenahay iyo qaabkii aan uga faa'iideysan inaan ogaano exactly horta wadankeena wax ku jira. dhawaanahan waxaa jiray shirkado shisheeye oo qaabilsan qodista shidaalka oo markaa iyagu heshiisyo la galayay maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood. heshiiskaasi oo ku qotoma baaris shidaal looga sameynayo dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah. sidoo kale waxaa jira dhul Soomaaliya ay leedahay oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose oo dawladda Kenya ay sheegtay in ay leedahay ka oo dacwadiisu taalo maxkamadda caalamiga ee adduunka, isla markaasina loo ballansan yahay in bishan July aynu ku jirno la qaado dacwadiisa.